لاعب كان قد كده وحو كمدها ciyaartoydii lagu bilaabay ciyaartii finalka Liverpool ay ku qaaday koobka FA ga dhalinyarada ciyaartaasi oo uu gool kula diliyay iyadoo Liverpool ay ku guuleysatay koobkaasi markii ugu horeysay muddo 12 sano Cabdi Shariif wuxuu si buuxda sidoo kale u saftay kulamada ciyaartoyda da'dooda ku hooseyso 23 jirka bishii January waxaasi goolkiisa ugu horeeyay isagoo ciyaaro waaweyn ciyaaraya u dhaliyay bishii April isagoo ka dhaliyay kooxda Chelsea Stephen Gerrard oo ahaa haliyay kooxda Liverpool isla markaasna kooxdaasi muddo dheer u ciyaarayay ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in qaab dhismeedka Cabdi Shariif uu u dhigmo ciyaartoyda waaweyn waxa uu Gerrard sheegay in Cabdi uu orodkiisu wanaagsan yahay isla markaasna lugu dhaadheer uu leeyahay wuxuu ka dhex muuqdaa buu yiri kooxdiisa iyo ciyaartoyda kaydka sidaas darteed waxaan isku dayaynaa buu yiri in Cabdi aan ku boorino sidii uu noqon lahaa ciyaartoy ka qayb qaata ciyaaraha boqolkiiba boqol waan ku raacsanahay in uu tababarka kooxda akademiyada ku soo qaatay una ka mid noqdo kooxda heerka koowaad ee Liverpool Shariif waxa marar badan loo xil saaray inuu kooxda dhalinyarada Liverpool oo u ciyaaro xagga daafaca dambe iyo dhanka midigta laakiin Cabdi isagu wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalkiisa fog uu ka ciyaari karo qadka dhexe marka runtii waynu la soconaa Liverpool inay soo saarto ciyaartoy runtii da'doodu aad u yartahay waxaana ka warqabtaa Raheem Sterling inay ka gadatay kooxda magaalada London ka dhisan QBR oo markaana ay tababari hore kooxdaasi Brendan Rodgers uu soo saaray heer uu gaaray in kooxda Manchester City markii dambe ay gadato